tobanka maalmood ee Dhulxijja waa tobanka maalmood ee macluumaadka ah sida Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa inoogu sheegay wadhkurullaha fi ayaamin macluumaat waana dhamaystirka bilaha macluumaadka ah sida Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri الحج أشهر معلومات والأشهر المعلومات وذو الشوال ذو القعدة ذو الحجة طبعا كأجوه ذو الحجة حديث أبو داود ابن ماجه غير كوت أي سوريين النبي عليه الصلاة والسلام وحيري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام maalmo camalka wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala ugu jecel badan yahay ma jirta sida maalmaha tobanka ugu horeeyay ee Dhulxijja camalka wanaagsan laba shardi ayay u leeyahay waa al-ikhlaas iyo al-mutaaba'a camalku waa in ikhlaas alla dartii loo sameeyaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo loogu dayda acmaasha wanaagsan oo in la sameeyo ay tahay oo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay waxa kamid ah in aan la badiyo tahliisha la ilaaha illa allah الله أكبر سبحان الله لبضيه الحمد لله لبضيه أذكرت عموما نبي عليه الصلاة والسلام أولو صليه صونك أول بتصدى من كان أولين طبعا كاسي مالين تعرفه نبي عليه الصلاة والسلام وحيري مالين تعرفه حالودن بدافع سنة كي تغيي سنة كصوص عضة لبا سنة يالودن بدافع صحابة وحي ويدين نبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله جهادك حتى مالمهان ميا كفد بدن وايو صحابته waxay ogaayeen in amalka jihadka ugu fadhi badan yahay waayo waa darwata sanaamil islaam yahay oo dhiigaadi aad u hurtid Allah subhanahu wa ta'ala dartiisa mar nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri wal jihadu fi sabilillah hatta jihadka maalmahan ayaa ka fadhi badan illa qof mooyee oo maalkiisa iyo naftiisaba jihadka aaday oo wax ka soo noqdayna aysan jirin naftiisana ku soo waayay hantidiisana meeshii uu ka soo tagay ninkaas kale ayaa ka fadhi badan marka waxa la doonayaa in timetable la sameeyo maalmahan tobanka ah oo inagu soo fooda leh in aan ku dadaalno acmaasha wanaagsan aan qabanna waxaan Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa inuu inaga aqbalo acmaasha wanaagsan aan sameyn doono tobanka ugu horeeya ee bisha barakaysan ee Dhulxijja waxaan kaloo Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa in cudurkan coronavirus naga dulqaado sanadkan oo soo socdana uu nagu daro dadka soo xajinaya oo loo qoray xajka innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh